وإلهي ما أديس أنا شاي إذن شاقي إن نكل يرادو إن على التنلاوة يوسف عند الجيت أي ربان إني كفانان قول ضدك الديغان كو إسحوري أي جارين قربنا كيرا عيد مدى قاب كسري دولة الصومالية ودوكتهين هو القلدي هيران كجري شلا أنا ودين سي شاقي وحا والله با اتصو إتابسي أنا قانا إن على قود لو إماد دونو صور رجلي دونو وحانا جرين كهادلي دونو meelaha oo baq dhihi doono diyaarado dad lagu soo kareeyna ayagu soo raacaan sawir la soo gala wax beena la isku qancinayo musuq maasuq tuuganimo loo imaanayo cali guud la waa kane ila dhageyso waxaad ogtihiin guddigan magacawnay dagaalka ka socda labada degmo saddexda degmo intuu dhaxaysa ka socday oo degmada Beledweyne Matabaan iyo Maxaas intuu dhaxaysa ka socday guddigan magacawnay gudoomiye oo yahay wasiirka arrimaha gudaha awalna abaabulkiisa bilowgiisa gudoomiye gobolkan ku ogeyn meesha on annagu ka warqabnay oo wax waliba aan la garab taagnayn ujeedkeena wuxuu ahaa in culayska saaran ummadda Hirshabelle laga dulqaado ahay guddigii goobtay ku sugan yihiin wasiirka arrimaha gudaha u heray inuu wafdigan soo raaco moogi inta kale fadhiyay wasiirada waxay ku sugan yihiin teedaan ay ku hoydeen xalay ayaantana ay joogeen sidaas inaad ogaatiin aan rabnaa inaan dagaalku naga go'an yahay loona kala heri ma hadii la raali ka noqdo intaas shalay intaan idin sheego nin dameer wado warka waa soo horeey ahayd waxaan in ma meesha yaal intaan shalay idin sheego si hor dhacon si ogaay waxaan in ma ka hadle intaas waxa ay dheer cali guud laawe tadahani deegan ahaan waa la ogyahay shabeelada dhaxan waxa yaal waa la ogyahay isbaaro al-shabaab dhac dil problem oo dhan dad marka dhulkooda xuriyo isxuray ayagu qoraga qaatay maxuu ka galaa nin meel ognaay ka yimid oo Soomaaliya ka dharagsantaa waxa horta Ilaahay maadiis dadka Soomaaliyeed hadda in la baray wax la yiraahdo ishaadu macalina ku ahaato hiiraana la ogyahay shabeelada dhaxana la ogyahay cali guud laawna deegaan ahaan oo shabeelada dhaxa ka soo jeedo nin gurigiis waxba ka galno Burundi qol jooyar ku yaal ku ilaaliso deegaan shabeelada dhaxa ku yaalo 10 kiiloomitir la soco karaana jirin meel dadkeedu xoreysteen in sawir loo soo aadiyo istus waxa la yiraahdo horta waa wax ceeba haddii marka qof adduunka jooga ceeb u dhinto cali guud laaw Yuusuf dabageeda u dhima lahay marka cali guud laaw waxaan leeyahay dad islaameed waxay suubsadeen in aan timaado sawir ku gashaa macna soo ma kordhinayse neeyo dadkaada iyo deegaankaada dayacan wax u qabo fariintaasaan ku fara reeyiraan waxaan leeyahay cali guud laaw Yuusuf dabageeda awal laba tuuga ahaayeen bilaa qaraadis meeshaas in sawir ku galaana rabo musuq maasuq iyo problem kale intay keeni karaan in meeshaas u geystaan rabo dad khayr laga suga maahan shabeelada dhaxanin ugu cali guud laaw khayr kama sugaayo nin meel nadaamsan jooga maamulna yaqaan meel qurxan oo xurana jooga wax laga sugaa laakiin shabeelada dhaxan nin ka yimiday ay hiiraan wax ka galo ama mataqaanay howlgal ka socda ka hadlaayo waa on dadku inay xishoonin in la og yahay ay moog yihiin Soomaalina isheeda u macalina marka cali guud laaw meesha ku yimidna waa naqaana dad ahaan iyo deegaan ahaan asiga maanta caawin iyo gurmad iyo gacan in loo fidiyo u baahan hadduu maanta intuu hiiraan yimaado soo dabageed ku daba dhuumana oo raba inuu sawir ku galo intaan shalay hore u irina oo yiraahdo waxaasna waxa waay waxaanan kuleyl iyo qabow midna nagu soo kordhinayn marka anagu dhulkayna waa xoreysan waana nadaamsanay dawladda Soomaaliya iyo intii kale garab naga siisay iyo dawladaha Mareykanka iyo Ingiriiska oo xagga meena baarka iyo duqeymaha naga caawiyeen oo wada mahad celinayna dhamaan intii gacan ku lahayd nin ragane wuxuu kaalme helaa oo garab qabasho helaa markuu asugu wax qabsana oo uu socod leeyahay marka reeyiraan waa dad gartay qof dambe shabaab inuuna dhex joogin cali guud laawane waa nin u soo dalxiis tagay oo deegaankiisa shabaab uga soo cararay inuu maanta intuu buulburti yimaado oo ka dhex hadlane wax macna soo kordhinaa maahano waxa Ilaahay maadiis meesha ka yimiday dadkiisa deegaankiisa inay Soomaaliyu ogta intan ka ogaay ka ogtahay marka reeyiraan iska ilaaliya cadowga badan hadduu cali guud laaw yahay hadduu al-shabaab yahay haddii kuwa kale oo al-shabaabka wakiilo oo marna idaan la xaday dhahayo marna askar qoryo la goosato qof shacab dilay wakiilo ay tahay marka intaas oo dhan taaliila laga akhrisanayo shartooda ilaaha nooga filan laakiin cadowgu waa badan yahay shabaab bismaan cali guud laaw shabaabka oo ka xageeya waa ka cadowsan yahay waa ka tasawur u soo doontay meel dadkii ilaahay xoreysteen asuguna xur maahan aad iyo aad idin salaam